xildhibaan Cabdirashiid Xidig waxa uu 2017 u tartamay kursiga gudoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. xildhibaan Cabdirashiid Xidig ayaa ku dhawaaqay in uu u sharaxan yahay xilka gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Xidig ayaa bogiisa Facebook ku faafiyay musharaxnimadiisa. Warkan waxa uu lama filaan ku noqon doonaa madaxweynaha Puntland Siciid Cabdilaahi Dani oo ah musharaxa u tartamaya xilka madaxweynenimo ee Soomaaliya. madaxweyne Dani waxa uu dareemayaa in ololihiisa doorashada taakal ma filaan ah loo dhigay. madaxweyne Siciid Cabdilaahi Dani waxa uu ballan ka haystay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe oo sheegay in uu ka hortagi doono in qof reer Jubbaland ah uu u tartamo xilka gudoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka. Xidig waxa wata midowga musharaxiinta oo aaminsan in Dani uu uga baxay ballantii ahayd in uu midkood uu soo dhisi doono si uu isagu u noqdo ra'iisul wasaare amaba uu u soo xulo qofka noqonaya, ayuu yiri qof gorfeeya siyaasadda oo Muqdisho ku sugan. wuxuu gorfeeyuhu intaasi ku daray hadalkiisa in musharaxnimada Xidiga ay shaki ka dhex abuuri doonto Dani iyo Axmed Madoobe. miyuu Axmed Madoobe ka baxay ballanqaadkii uu u sameeyay Siciid Dani haddii Xidig hadda uu u taagan yahay in uu u tartamo kursiga gudoomiyaha aqalka hoose? La taliyayaasha Siciid Dani ayaa ka fakaraya sidii ay u dejin lahaayeen istiraatiijiyad ka hortagaysa in uu Xidig uu ku guuleysto kursiga gudoomiyaha aqalka hoose. Siciid Dani waxa uu faray xildhibaanada uu soo saartay inay u codeeyaan qof kale, taasi waxa ay yareynaysaa fursadda uu Xidig uu ku noqon karo gudoomiyaha baarlamaanka, ayuu yiri gorfeeyuhu. waa markii labaad oo Xidig uu isku soo taago inuu u tartamo kursiga gudoomiyaha xildhibaanada baarlamaanka aqalka hoose. waa suurtagal in musharaxnimada Xidig ay si ku meel gaar ah isugu soo dhaweyso Dani iyo madaxweyne Farmaajo, ayuu yiri Maxamuud Aadan wariye ku sugan magaalada Kismaayo.